Madaxda ugu sareysa ee xisbiga wadani oo xabsiga Mandheero ku booqday 62 dhalinyaro oo Burco laga soo xidhay. Madaxda xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu hogaaminayo musharaxa jagada madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cere iyo gudoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa xabsiga Mandheero ku booqday 62 dhalinyaro, qaarkood ay da'doodu aad u yar tahay, dhammaantoodna laga soo qaaday magaalada Burco. Madaxda xisbiga wadani waxay dhalinyarada u jeediyeen hadallo ay kula daran yihiin iyo sidoo kale guddoonsiiyeen agab iyo deeqo kale oo ay u sideen. Geestooda waxay dhalinyarada 62 ah laga soo qaaday magaalada Burco ka warrameen xaaladda xabsiga, iyadoona 4 ka mid ahi sheegeen inay xanuunsanayaan halka wiil kalena isna loo qaaday cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. maanta oo khamiisa bishu 24 tahay waxaanu ku soo booqannay dhalinyar 62 ah oo laga soo xidhay gobolka Togdheer gaar ahaan magaaladiisa Burco oo jeelka weyn ee Mandheero lagu soo xidhay. Wafdu hogaaminaya musharaxa xisbiga iyo gudoomiyaha xisbiga iyo hogaankii iyo gudoomiye ku-xigeenno ayaanu ugu kuurgalay xaaladooda caafimaad iyo xaaladooda xadhigba. Marka dhalinyarada lagu xidhay dhammaantood waxay ka yaryar yihiin age-kii lagu talagalay dhowr iyo 30 baa dhowr iyo 20 ka yar. Marka aad baa uga xunnahay. Waxaan waalidkood ugu sheegaynaa inay intooda badan caafimaad qabaan. 4 ka mid ayaa xanuun sheeganayay. Mid ka mid dhalinyarada Burco laga soo xidhay dhakhtarku ku jira aan ku booqanay isaguna oo qalliin madaxa lagaga sameeyay. Marka hore khalad bay ahayd in magaaladooda laga soo qaado oo marka labaadna iyagoo dhalinyaro intaa laaleegin xabsiga Mandheera la keeno. Arrintaas walaac weyn bay xisbaan ugu haysaa. Waa ka xunnahay xaaladan dalku ku jiro ee xanuunka xumadda ma sababayso inay xabsiga lagu sii hayo. Waa ka xunnahay. Marka waxaan ugu baaqaynaa maamulka inay degdeg xorriyaddooda ugu soo celiyaan dhalinyarada yaryar ee teenage-ka. dal jacayl baa ahayd in dhalinyarada lagu beero ma ahayn xabsi iyo xadhig lagu beero. Beydkoodii iyo baradoodina laga soo fogeeyo ciqaab bay taas u ekaanaysaa. Marka totally sifooyinkii sharcigu dhigoo dhan xadhiggaa looma marin. Waa ka xunnahay. Marka waxaan jecelahay inaanu bulshada reer Somaliland iyo waalidkii iyo ehelkii iyo taageerayaasha xisbigaba u sheegnay inuu saaka booqanay dhalinyarada oo mahadsantihiin.